إخلاص له أدوج جوابته أو أترى مو أوجي أنا كمان أقان حدي أتقان أتك جوابته وقت قدير أو محكمة كله من يسنى هذا محكمة أقول من وحا معنى لهين أبو كاتا وحال الفرع أبو كاتا سؤالها جهدي مجد أو كجرو حقه وحوليه أنت دوره إن أو كويديسو إن أو يراد إفافاه أما مفهمين هذيك أنا وحال قربا إن أدفافاهيسو سؤالها هدفك إيه مقصودك أتكلم هنا أنت بدل إنك عبارته أو فسرات إيه ما ركته هدفك لو ده فهم كرو دوينون فهم كران محكمتنا فهم كرتو هانت دورون فهم كران أما مرق ماشي أنت قالوا فهم كران إن أول ديسو محكمة واحد فريسة إخلاص لإن تعود الوضوء أبو كات سؤالها قال أمرك محكمة واقعتي سؤالا هدفي أنا أجيدك له إنه ويديماي توفهم ويانا وأقول علينا يا أما سكلا ويدينا يا أمر محكمة واقعتي هروقل أوكي باري خير الله كسيه وحد شيء تصوم معهن إن حتى نتيجة مركز جاريسي لعقت على اللونصلاء أديك ستي مايكروسوفت وورد أوكي حسابيه جود أو سمع لله حسابته أحرى يا سيد شيكتي أو F35 قراي أو لعقت إنتو أركوه بيكيد ورقة قراي إيا أديك أو مايكروسوفت وورد استعماله كلا قادن كرا نتيجة وربحنت أنكو سو قرني وحنا استعمالنا آلة بدل وورد كم ديها وربحنت البيسو أهل الوقرة آلة كلا وربحنا ذا الوقرة أو كسو استعمال أو كسو ما يننا ويجرتها حفيز كان تدور كان وحو استعمال سيستم هنتدور هذا أدوك أو كلام ديسيه وحساباتك إيو خلاداتك إيو سحناشوه هذا لغو حسابي مدة وورد ماد استعمالش وورد وحو كمدي هاي وحيابها أن استعماله مد كمده ويجيران كوكلو أن استعماله لكن ماذا ويجيرين وورد كحلقة وكمده وواجرها وكي جوابتو مالينا أستاذ واد ما حسنت خير الله كسيه وحماشان يالو هيئة أديك سوق قبطي تريفة سوق سميسة سرقال كي وزارة المالية أو عنشورتي مسؤول كأحي سرقال كي بنك قبط خسنجي جودو الله حساب تمي معموله يوسيه بيي حسابيه جودة سي صحيحي بنك قد حيه هبصري العقتي هانتي دور كو بيل والبربود لسينايا سند والبلا هانتي دوراي انتا صودن انتي بين نقدان تادا كليغت رون ما نقون كرتا انتا صودن وحي اي قبنايين وحي انتي سحنيد او ليسلا اوغا ايا لا ودا مرسيناي لكن مدان وربحنتان aan ku soo sheegay ma ahayn mid sarkaalka xisaab xiro ka sameeyay hanti doorka loo soo gudbinay bangiga dhax loo gudbinay maaliyada loo gudbinay xisaabiyaha guud loo gudbinay inta saxan sida saxda loogu adeegay nidaamkaasay mareysay hanti doorka loo soo gudbinay halkaasay mareysay laakiin inta qaldan oo mugdiga lagu shaqeynay meel ay lagu arkay habeeraatay ma jirto adeer khayr Allah ku siiyo inta 12 milyan adaa sheegay lacagta kaleantood in saraakiisha bangigu ay qabteen imaba qabanaa tiriba sorry lacagta kaleantood salinkid uga la dhigaysaa saraakiisha bangiga tan waaba qabteena tiri waxaa linkin ugu dhigayaa waxaa jiro lacagtaas in la xisaabiyo oo dadka loo adeegayo oo la xisaabiyo systemka la geliyo arrin sababaysaa jirta abukaat qofkan marka fiisa la siiyo wuxuu baxayaa elaboorku tagaya xilligu rabo bixi karaa xilligu rabo soo gali karaa lama yaqaan qofkan goormo bixi doona ama dadyoogana goormay bixi doonaan elaboorka markay tagaan waxay ku qasban yihiin qofkii fiisa inuu helo deganaanshan inuu helo qofkaas ajnabiga soo u bixi karo waa marka in la xisaabiyaa counterka qofka markuu istaago aan ku dhamee abukaat aan ku dhamee كعلي هالقول ماشي اسكو علي وحاجرو عندنا نفهم يسولو وعلي مالهن وكعلي عفوا وكعلنا لعقتان إلا حسابيو وحان شاقني حسابات كاس اي وضا مران إني تهي لعقت سحن لعقتان مركا إلا حسابيو أننا هدا أن دب أسو حسابينو أن أرقنو وحاك اللي في هالأرهن قفك مركا فيسا هالسيو
work permit uu helo dalka si caadi u joogo wuxuu sameyn karaa safarro badan inuu baxo inuu soo noqdo ilaa waa qof waddankan in loo ogolaado inuu ka shaqeeyo xilligoo rabana bixi karo marka arrinkaas ay jirta marka qofka maadaama waqtiguu rabo uu bixi karo asigoo feeg uu yahay fiisihiisii iyo work permitkiisii haddii alaboorka lagu qabto qofkii caqabadaa ka imaanaysa sidaa darteed marka waxaa jiray system aan lagu xisaabinin dhacdooyinkan caadiga ah ee qofkaas counterka caadiga uu arki jiray daasoo aan usoo xisaabin hadda oo u isticmaalnay systemkaas ma fahantaa bukaat systemkaas lacagihii noocaas ahaa oo iskugu jiray kuwa saxan kuwaan saxnayn iyo kuwa qayb sax ka tahay waa inta aan warbixinta kusoo wada qornay wax kasta oo aan soo qornayna mal awaalna maana qorin systema base u ah waa la heli karaa maxkamadda heli karta abukaata adaa heli karo wasaaradda maaliyadda laga heli karaa hay'adda socdaalkana waa laga heli karaa khayr allah ku siiyo ma waxaad leedahay khayr allah ku siiyo ma waxaad leedahay sargaalka bangiga dhexe fiisooyinka iyo woog bermadiyada feega ah haddii garoonka ay ka bixi tagaan oo ogaana miyaad leedahay sharxaadii ma dib ugu noqonayna adeegaas la qabtay lacagtiisa inuu qabto mas-uuliyadda dowladda u ilminteed sarkaal dowladeed waay maamulo waa qasriji waay lacagtaas inuu qabtay khayr allah ku siiyo qaybna wuu qabtay qaybna wuu mara hagaagiyey hanti dhowre mas-uulka bangiga dhex jooga airbortka markii laga baxayo qofka fiisaha wata fiisahaas adiga fiisooyinka aad feegga ku sheegtay oo aad soo gudbiseen inay feeg yihiin ma ogaan karaa xaaladaas markaas ma ogaan karo laakiin qofkaas marka hore fiisa la siiyo ma ogaan karo waa inuu asal soo maraa ujeedka aan ka leenahay marka uu baxayo ma ogaan karaa ma ogaan kariyo markaas okay haddoonan ogaan karin wasiiladaasi meeshay ka baxday jawaabtaada hore marka su'aal ma leh hal aku noqon abukato adigna ya su-aashii hore waxay lahayd waa record meesha aanay ku jirtahay haddaa su-aal weydiin waxaa maadanta okay waxaa u imaadaa arrinta la xiriirto lacagta salaam bankan in lagu soo shubo okay khasnajiga bangiga dhexe markuu lacagta qabto shaqadii dhammaato sow lacagta salaam bankin geyn maayo oo garoonka ku yaalla bangiga dhexe u geynaa laan kalaa ku taala bangiga dhexe adeer waa mahadsan tahay bangiga dhexe inuu geeyo uma baahno in maalinta xigta xisaabiyaha guud yimaada ee lacagta uu xisaabiyo ee uu yidhaa waa huban tahay ee ka bacdi la geeyey ay u baahan tahay marxaladda intaas ka sokayso lacagta xaggow ku sii haynaa sida aan caddaynteeda ugu qoray xisaabaadka inta xisaabiyaha guud ay ka imaanayaan inay u wareejiyaan laan kale oo maamulaha maamulka yahay meeshaas lagu hayo qaybtan laga wareejiyo waa caddaynta sidoo asaga iigu sheegay adeer waa mahadsan tahay okay khasnajiga oo socdaal iyo midka lamidka ee khasnajiyaasha 11 khasnaji ah lacagta ay qabtaan waxay u geynayaan khasnajiga guud Soomaa khasnajiga guud faafay khasnajiga guud qaybta alaboorka inta joogtay khasnaji kale u geynayaan khayr allah ku siiyo soo ma ogaan soo maahan in khasnaji guud oo jiro inta baaraysa khasnaji guud firi bangiga xarumo badan oo leeyahay abukaate laakiin baaristeeda iyo inta aan baaray aan ka wada hadalno xisaabiyahan wuu wareejiyaa iyo ku wareejiyaa khasnaji kale ku wareejiyaa khasnaji guud wuu jiraa dawladda khasnajiyaal badan ay leedahay laakiin dhacdada fiiri dhacdada ninkan maalintii khasnajiga idman inuu lacagta qabto lacagta markuu qabto wuxuu ku wareejiyaa galbihii markii la gaaro khasnaji kale oo maamulkiisa iyo xarunta kale oo loo wareejinayo khasnaji guud oo ku wareejiya ها مايا خسنجي جود فيري خسنجي جود هرت إرجع سأسلف عنه خسنجي جود مال واحد خسنجي جود محاولة جدا وكذا يا خسنجي جود محاولة جدا خسنجي جودات سلو فهم خسنجي جود محاولة جدا خسنجياشا لعقت قبنا يميت كواد الدنبيا لعقت أيكو أوروريانا واحد عن خسنجي جوده جود ولا فهمه فيري أنت صح حفيز أو لعقت حرين قابشان واحد ووق برمتك iyo fees accusation lacagta khasnajiya qabto xafiis kalantood fiisooyinka imaana khasnajiya qabto xafiiskan kale khasnajiya qabto waxa soo dhan khasnaji guuday lacagta u geeyaan waa la wareejiyay meel kale la geeyo ku dhahay ya waxaan rabaa meesha kale la geeyo waa xagee ma khasnajigu guuda ma soo meel kale
أو كانت خسنجي كان مركو قلبت حسابته وريجينا أنت حسابيها قول لك أنا خسنجي كلا الوريجيا أصل بنجي دحية oo khasnaji guuda okay waa mahadsantahay okay qasnaji guud ma dheen qasnaji guud ma dheen kan hee su-aasha adiga aad rabto u sharaxa hadda ayo dhowraa mahadsantahay okay khasnajiga kale lagu wareejinayo ma khasnaji guuda mise waa khasnaji وخسنجي كلا أو إدمان لعكتها إنه كقبت خسنجي كان khasnaji guud maaha maya abukaadka guud su-aashaas haye waa ka gudbay meesha lacagta loo wareejiyo waa kuu sheega lacagta markay qabtaan qasnaji kalaa lagu wareejiya waa mahadsantahay hay lacagta marka la wareejinayo in jeeg ahaan loo wareejiyo ama kaash ahaan khasnajiga kale loogu wareejiyo ma ogaatay waxay ku xiran tahay qaabka lacagta loo qabto haddii jeeg loo qabtana jeega loo wareejiyaa haddii kaash loo qabtana kaasha loo wareejiyaa waxay khasnajigan oo kaash u qabto inuu baxo oo jeeg ka soo dhigo jeeg ma wada wareejinayo ama inuu baxo jeeg uu kaash ka soo dhigo kaash ma wada wareejinayo xaaladda uu lacagta ku qabto ku wareejiyaa okay mid kale ma og tahay bangiga dhexe inuu qaatay boolasi ah kaashka in la yareeyo igu celi ma og tahay bangiga dhexe inuu qaato boolasi ah kaashka in la yareeyo maxaa aniga hadda ka tarjumaya bangiga dhex ma og yaa kugu filan bangiga dhex bolosiyo badan uu leeyahay inuu kaash yareeyo mideeda kale in kaashka la yareeyo waaba khatar guud waayaba qofka in bangi la isticmaalo waxaas waa policy jiro waa kugu filan macaanu fiiri abuka taa ii meerin aniga abu guud su-aalka loo weydiin ya ka gudub okay waa mahadsantahay koontooyinka waxaad fasirtay eedaysanayaasha ma ogaatay lacagta ku dhacday koontooyinka eedaysanayaasha inay uga baxday jeegga wareego mase ma ogaan afasirta maxaa ula jeedaa koontooyinka afasirta koontooyinka waan aragnay waana soo gudbinay afasirta maxaa ula jeedaa meelaan ku fasira ma aragti maba u baahnidba inaad fasirtaba iska dhaaf ma ogaatay koontooyinka eedaysanayaasha lacagta ku dhacday inay jeegga wareega uga baxday waa mahadsan tahay koonto shakhsiya lacag dowladeed inay ku dhacdo sharcigaa kasoo horjeedaba su-aashayda iiga jawaab fiiri waxaa caddayne koonto muwakiilkayga su-aashayda halaigaga jawaabo ma ogaatay in lacagta ku dhacday koontooyinka halkaas ani faldambiyadu aqoonsan adeerow su-aashayda sug igana jawaab waxaan tilowri su-aasha lagu weydiinaa ka jawaab haddaa ogtaana sheeg haddana ogeyn ma ogidhi gudoomiye arrinkaas wax yaraan ku darsado sharciga waddanka shaksi lacag dowladeed inuu ku qabto waa faldambiyeed taas faldambiyeed halkaas markay tahay inaad faldambiyeed kale aad kusii raadiyo sug faldambiyeed laguma weydiine waxaa lagu yidhi lacagta ku dhacda akoonada dadkaas shakhsiyaadka meeshaas fadhiya inay lacagta jeegga ka timid tahay ma ogaata haa ama maya gudoomiye lacagahaas koontooyinka dadkaas oo dhan soo wada mareen waan arkay lacaga badan oo milyanis oo saas u wada wareegayaan waay waxaana u baahanahay inaan waqti qaato oo aan ku kala cadday arrinkaas ka gudub waa mahadsantahay weli kuuma kala cadda soo maaha maxkamaddaan ka codsaday inaan waqti qaato oo kala cadday arrinkaas okay waa mahadsantahay okay si fududoo looga jawaabi karo inta aad arkaysay oo bangi statementiga eedaysanaha aad arkaysay ma ku dhex aragtay lacag ku baxaysa jeegga wareega maxkamaddaan waqti ka codsaday arrinkaas wixii arrintaa ku saabsan jeeg iyo bangiyada ka gudub waa mahadsantahay okay si kalen ku weydiiye marka koontada iska ilow ma waa koontada dhanka gudub haddii aad soo heshana waa kaas haddaa soo heli weysana dhib ma laha waxyaabaha aad soo heli weysan ku daraa wax aan soo heli weynahay inta lama imaanba khayr allah ku siiyo jeegga wareega maxaa loola jeedaa ma fahansanta wax loola jeedo jeegga wareega ani warbixinteeda meel bay ugu taalaa soo qoray maya awkaad maya iga daayo koontaduusa ku dhex qoran yahay maya ay leedahay waana sii socotaa weli koontadu ku dhex qoran yahay jeegga wareega meel mugu qorantaa warbixintaan koontada keento ku qoran yahay wareega meel mugu qorantaa warbixintaan maya adaa ileh waan isii weydiinay haddana koontadu ku dhex qoran yahay koontada waxaa ku dhex qoran bangi statementiga aa keentay jeegga wareegoo tiro badan wax loola jeeda ma taqaan bangiga qoraya weydii fiiri bangiga qoray aniga bangiga maaha laakiin aniga dhacdooyinka maaliyad in aan la su-aal kale weydii su-aal kale ma weydiina waayo su-aal kale weydiina waxaanu nimaadaa general rasiidyada oo aad sheegteen in la been abuuray sargaalka bangiga dhexe general rasiid
miyuu jaraa lacag qabasho waxaa lacag qabasho haa oo xisaabiyaha guud lacag qabasho waxaa jiro maaliyadda maya sargaalka bangiga maaliyadda asiga inuu lacagta qabto waayo lacagta adeeg inuu qabto waayo haa sargaalka bangiga general receipt inuu jaro miyaa waajib ku ah shaqadiisa ma kamid tahay rasiid maaliyadda iska laha ku dhahay laakiin maaliyadda bangigan maya ma lahan maaliyadda iska loo kulay ma lahan soo maaha okay sidee aad u leedahay qof warqad aanba laga rabin inay jirto oo aynan shaqo ku lahayn su-aashiis warqad aanba laga rabin inay jirto oo aynan ku khasbanayn oo shaqadeera aan ka mid ahayn way been abuurtay sidee u leedahay warqadan la been abuuray ee maaliyadda ka hadli mayna haddeer bangiga dhexe su-aalahayga waxaa ka mid ahayd oo takaase waa warqadda uu lacagta markuu qabto u jaro fiiri waa kuu sheegay su-aashaadaan ka jawaabay warqadan hadduusan jarin oo aanan androre warqadda rasiidka ee invoice-ka oo ka soo baxda xafiiska xisaabiyaha guud maadaama mas-uulka bangiga dhexe oona ku jarin lacag asagu sidee loo dhihi karaa waa been abuuriye su-aasha intaas waa waxaa loo dhihi karaa qaabkii aan soo sheegnay warqadaas lacagteeda inuusan asiga qabanin adeegiina la qabtay adeegii waa la qabtay guddoomiye fiisihii waa birmadka qofka waa la siiyey lacagtii qofkan haddana sarkaalka u idmana inuu qabto ma qaban warqadina waa qoran tahay haddana macnaheedu waxa waaye wax oo iska shaadhow ahoo aanan sax ahayn laakiin muuqda warqadii lacag qabashadaa qoran bangiga dhexeeyaa ogol xisaabaadkiisa inuu soo martaa laga dhigaya waxaa loo sii gudbinaya hay-adihii adeega qabanaya haddana lacagtii markaa u tagtoo tiraa lacagtan baasaboor numberkan wata lacagtiisa aw wax yaalla ma jiraan intaas waa macnaha marka maadaama bangiga dhexe lacagta inuu qabta ay ahayd oo takaasa oo warqadii lacag bixintu maaliyadda u qabta ahayd maaliyaddan inay qabatay ahayd xisaabaadkaas qofka labadii warqadood la siiyo halkaas loo gudbiyo transactionkaas sida uu u qornaa umuusa dhici lacagta maa la qaban macnaha general rasiidka sow nuqulkiisa koowaad nuqulka eega general rasiidka sow nuqulka koowaad oo aan ka wada nuqulka eega sow lama siiyo macaamiilka nuqulka biiga iyo siigoo isku dheganna wasaaradda maaliyadda u heran soo maaha taas waa wax iga jawaab maya hadda fiiri abukaan adi hamu fiiri ballantiina waa ka baxday guddoomiye hadday waa ballan haddaadna aqoonin ma aqaane haddaad taqaanana waa aqaane laakiin dadkaa yaqaano su-aasha adaa lagu weydiiyey dadka lama weydiin okay nuqulka biiga soo xisaabiyaha guud lama siiyo soo ugula xisaabtamo lacagta soo ugu xisaabtamo xagartaa wala jawaabta gartanaa waa kuusoo bilaabaa su-aalaha waa isku xiran yihiin general rasiidka soo 3 nuqul kama koobno ma hubin arag ma hubtid okay nuqul kamida okay nin aanan garanayn nuqullada general rasiidku uu ka kooban yahay sidoo baaris u sameynaya ma garanayno kuma arday dadkaa maran hawaabin ma hubaad ma hubin inaan ku dhahay waana wax dukumenti computerka ku jiro hadda la hubin karo okay adeer arrintan basic waay waa muhiim ma hubaatay niman soo hubsan general rasiidyadii waa been abuur oo soo yiri inay 3 nuqul ka koobnaayeen inay 2 ka koobnaayeen iyo inay 4 ka koobnaayeen sidoo 17 milyan soo hubsada xaaladda hadda aan taaganahay waa wax computerka ku jiro oo base la oo leelayo waay haddaan ku hor taaganahay su'aal kastana inaan ka wada jawaab mid kasta sida ay tahay inaan hubsada u baahanahay bilaadana hubso waa la hubin karaa wax weyn maahan hubso ka kooban yahay dadka la sii arrintaas in la hubsado u baahana su'aalo badan oo ka hor taagan yahay in la hubsado u baahana general rasiidka inaad go'aan ka qaadato imise nuqul ka kooban yahay awgaate saddexda xabuu ka kooban yahay iyo dadka loogu kala talagay waa lagu baa ogaanaynaa wixii kale ay weydiinayso hore ugu soco waan lagula wadaagaa 3 xabuu ka kooban yahay horta 3 xabuu ka kooban yahay yaa la kala siiyaa waa mahadsantaa aan kuu soo koobo 3 xabo oo general rasiidku ka kooban yahay nuqul kamida miya sargaalka bangiga dhexe la siiyaa maya haddee sidaad u leedahay marka inuu ogaaday aheeday iyo waa been abuuray iyo sad u leedahay steepkaasoo ka horeeya waxay ahayd inta maaliyadda la soo gaarin lacagta inuu qabto
أنت مالية لسوق قارن أو ورقدنا سؤال هذه ويديني أنا لسوق قارن وحيد لعقت إنه قبته مالية أصدر إنه لعقت قبته سيقف كاس مع عميل كأديك لو قبته adeer waa mahadsan tahay qaybta ugu dambaysa waa iska ka dhaafa waa soo kooba su'aalaha okay خير الله فسيه هل سؤال أنت أنا غيبتان كلي أنا قلي هنتي دورك بنك قد أولد ما كسميا مايا أوكي سراكي شيسا أنت آلن سوحر سوما هين إن أولد كبنك قد كورسكت أذيقاس لقبتان بنك قد حالي مصاب مبارو بارستيسن أمانتك وحا سوحرنا أذيقاس واي أذيقاس لقبتان هذا روا ما حسنته دت كان لسوحر سو بارسا أدوك سميسا كما دال ها بنك قد حنا مبارت سوما بنك قد مبارو هذا سراكي شيسا سوحر هذا دم بار أذيق أي قبتين إني قبتين أوكي خير الله هو مهسني هاي دعوة دوجها خير الله سيو ماشي أنا واحد تعلق وحساب ماليات ودعوة أما أرين كسر باللعبتي بارس هنتدور بأوسني وبعد لنا باري هي أذكر الدول أو بنك قد أو كجر سوشيء إسلام مركز وحوشة إنه نن أود ولا هين أنت حرلو خلا وحيتها حرست إنه أنا لهين بس أوكي وما سنتها حرست مرة بارس ولا وما سنتها بقول سؤال أقل أوكي وما سنتها وكان نقول حرست وحنكار ربعان تلور خير الله كسيه أديك وحد بارتي هي أذاك الدون سوما هي أذاها أدبارتي بنك قد حما كجرا سيدا عادي هي أذاها أنبار سوساس ما سوى هذا سيدا عادي أوكي سيدا كوكا لقالا سيدا عادي هي أذاها أدبارتان بنك قد حما كجرا وعنبارا هيئات كستا أو دولدات يا هيئات كستا أو دولد قيب كتا برسنت كيسكي دون تبع كلا هنتيد الدولد أو دن نوع عرب تبعات بنك قد أولد ما كوسا ميسا بنك قد أولد كما سماه أوكي سراكيشان سو بنك قد أوشا قيمهين ما حدو بارتي واي أذيك لعقتي سلا سوق قبتي بنك قد حقبتان وبار بنك قد حوحان أذيك هين مو قبتبا mana baaraa tiri bankiga dhexayna ka shaqeeyaan inaad baarto soo sharci darro ma adeega ka imaaday macaamiisha in loo adeego baahidooda ahayd ee warqadaha codsiga u soo gudbiday adihii ku shaqada lahaa ee loo soo ogolaaday in loo qabto lacagtii uu qabanayay markii la rabay inuu qabto hadduusan qabanin mas'uuliyadiisaan kula xisaabtameynaa dakhli hanti ummadeedana meeshaas ku maqan waxayna arrinkaas ku darayaa muddada yartahay baarista socota abukaati warkaygi waa su'aal raalli ahaw muddada yartaa baarista ay socota su'aal ana weydiin inuu ka jawaabo ma rabo maxkamaddu inay ka celisan weydiisana adeer yaa si hore dal lagaga jawaabay ama su'aal kala qabta gal okay waa mahadsantahay adeer waxaan ka rabaa adiga audit-ka gudaha ee bangiga dhexe baaristii uu sameeyay ma aragtay maya okay xiriir ma la sameysay maya
bangiga dhexe wax xiriirahoo aad la samayso saraakiishan ku saabsan ma jiraan soo ma ah maya adeer haddii aadan bangiga dhexe xiriir la samayn owdhidku gudaha baaristuu sameeyey aadan ka war haynin ee aadan sharcigu kuu suudinayn bangiga dhexe inaad baarto sow sharci darro qaawan maahan in meeshaan war aad qoraalkaaga saraakiishan ku soo qorto maya limaada adeega dowladeed macaamiisha loo qabanayay baahi jirta ahayd adeegii la qabtay lacagtiisii aan la xaraynin oo aan hayno darteed waayo waxaan aan warbixinta ugu soo qornay waa ka gudba su-aashaas jawaabteedu ima qancin laakiin difaacaygan ku sheegaan adeer waxaan kaa rabaa ma jirtaa in markii eedaysanayaasha lasoo xira kabacdi hanti dhowrka uu shir jaraa'id qabta uuna yidhi saraakiisha bangiga dhexe kiiskan kuma lug lahan yaa dhahay warkaas hanti dhowrku inuu yidhi ma jirtaa mase ma jirto meeshuu ku dhahay keen ma jirtaa igu kugu filan meeshuu ku dhahay keen ma ogi haa Ama waa ogaadeen, aniga ma ogi kuma lug lahay sarkaal bangiga dhex meeluu hanti dhowro ku dhahay ma ogi kiiskan annagaa baarayn annagana maanan dhihin hadday jirta keen adiga ma dhib ma lahan haddoodna ogeyn xilligan caddaynaya hadda lama joogo su-aalla hadda kaa weydiiyo waayo waxaan rabaa adeer khayr allah ku siiyo warbixintaadii oo bangiga aad ka qorto oo ma haysatid soo ma haysatid warbixintaadi ku soo dhib ma leh ma haysataa haa iyo maya waxaad tagtaa bogga 32 hoos ka soo bilow waxaad tagtaa farqiga kolomka farqiga midka oo ku saabsan midka dhexe farqiga geeska kale lama rabo midka dhexe 360 halkaas ma ku qorantaa numberka hoos kolomka koobaad waxa waayay adeegi kolomka labaadna waxa waayay maxaan idhaahdaa wasaaradda maaliyadda systemkeeda kan saddexaadna waa farqiga 300 ma ku qorantaa meeshaas 360 sorry midka ugu hooseeyo ha soo fiirso khayr allah ku siiyo lix kolom waaye saddex waxaa waaye waa barmadka saddexna waxaa waa fees extensionka midka dhexe 300 ma ku qoranta meeshaas iyo 60 sorry meesha ugu hooseysa kasoo bilow hoos ha bogga 32 انت لو رأيت كسوات ديارة وقت انت على جناد رباطك سوقرت مع كم قدم معك ما يا ديار بدوني عفوا صدق لما جو اوقات صدق لما جو كان اوكي حاطر ستا نمبر 2 وحوا ادق كل ما قبل مساس هوس كسو بلو ايه هوس marka kasoo bilowdo 360 مع اوسه ارق اوسه maxaa يا shirkadda hoose socon وصوص متى واسل جوجنا unsos ma joogtaa unsos farqigu soo 360 kuma sheegin unsos miya ha lacagtaas soo kamid ma ahan lacagta aad eedaysanayaasha ku eedeynaysa maya
waxaan rabaa okay farqiga waxaad noo sharaxdaa sida uu u samaysan yahay taybulkaaga noo sharax wuxuu u samaysan yahay hay-adaha wasaarka naxsano انت اللي شرح انت الموضوع كلهم قريه انا فهمتنا انك فهمتي soo qorto waxa hay-adahan daatadan annaga aan la isgareynay waa daata naloo soo gudbiyey hay-adihii markaas shaqeynayay daatada ay noo soo gudbiyeen qaybta u horeysa hay-adan loo yaqaano unsos waa hay-ad caalami ah dabcan oo waddanka qaybo badan ka shaqeyso $630 ayaa adeeg loogu qabtay lacagta laga qaaday waa $990 waxaa minus ku jirta $630 dabcan marka hay-adan maadaama lacagtii loogu adeegay lacag dheeri laga qabtay aniga maadaama aan hadda dhowr ahay midna ma ka tagaayo tii maqnayd tii zaa'idka ahaydna ma qarinayo waxaan ku qasbanahay wax kasta sidii ahaayeen inaan usoo bandhigo waa midda koowaad midda labaad lacagahan dheeriga ku ah maalin dhaweed ma weydiisay waa kuu sheegay waxaan ku dhahay lacagta hadday maqan tahay iyo hadday meeshaan dheeri ku tahay waa dheeriga aad arkaysa waa $100 $30 $10 wax noocaasa marka maadaama ay saas tahay lacag kasta oo xisaabaadkeedii daatadeeda nagula soo gudbiyey sidii ay ahayd aan la isgarayna waan usoo gudbinay adeer khayr allah ku siiyo sow adigu ma dhahay labada wasaaradda maaliyadda iyo adeegan isbarbar dhigay farqiga ayaana ah lacagta la dhunsaday sow adigu ma dhahay mase waa ka noqotay 360 farqigi ma tahay 360 farqi way tahay dabcan raala okay farqiga haday tahay sow ma dhahaysid waa lacagta la dhunsaday maxaa u jeedaa fiiri waxaan kuu sheegay adeega loo qabtay abukaato waxay sug adigu xad su-aashaadu waxay tahay 360 ma farqiga lacagta la lunsadaa mise midda la shubaa ujeedkaaga maxaa ujeedkaagu waxa waaye sharaxaad oo noo sharxay maroo noogu sharxay wuxuu yiri waxaan lifaaq waxa waaye kolomida dad ka qabta adiga kolomyada lifaaq waxa waaye in kolomka koowaad oo adeeg wixii lagu qabtay kolomka labaadna lacagta la shubay ay soo wasaaradda maaliyadda ku jirto farqiguna waa lacagta la lunsadaa ee sanaashan ku aadayna qaacidada sidaas ku socoto okay anti dowre bug ma haysta buugga haddaad haysato beejka haysato 32 kolomka saddexaad muxuu ku yahay ma lacag la lunsadaa mise lacag la shubo lacagta la shubo waa 930 lacag kuma weydiinaya waxaas inta kolom ku qorno soo adu soo boqorin kolomka saddexaad muxuu ku yahay ma lacag la shubaa mise lacag la lunsado lacag la lunsado yahay okay haddii aad sheegtay 900 iyo xoogaa ay shubtay shirkadan 620 ana maqarad ma dhihino sidee kale inta kan see uu noqon lacag la shubay 630 adeeg ah loo qabto gudoomiye waxa la shubay 990 isla kolomkaas fiiri minus raacsan lacagta waa plus iyo minus waa kolomkaas waxa arkaysaa kii la lunsada miya kolomka mas kii la shubo kii la lunsada waa minus ay tahay oo ziyaado ku tahay lacagta adeeg la qabtay ay ka badan tahay waxas ma rabo waxas waxa ina fahmaan rabo waxa waay kolomka saddexaad muxuu ku yahay lacag la lunsado yahay lacag la lunsada Soomaa adeega la qabto waa imisa waa $630 $630 360 ma lacagta la lunsada mise lacagta la shubo lacagta la shubo 990 iyo 90 la shubo 630 ayadoo laga rabay ay 990 company laga qaaday lacagtii laga rabay ka badan oo bixiyay maash waxa ku qor marka waxa minus ugu jirta $360 adeegii laga rabay lacag ka badan ay bixiyeen ana hadda door marka waxa ku qasbanay inaan sheego tii minus wali ma fahmin aniga gudoomiye hal arrin waa hal mar ay waxaan ku weydiiyay iiga jawaab bis lacagtan ma lacag dheeraad oo lacagtii loo baahnaa ka badan la bixiyay iyad qaybteeda inta ku soo qortay mase lacag la lunsada kolomka 360 waxa waaye lacagtii loo baahnaa ka badan la bixiyay saas ugu qoranta minus waaye minus 360 qoran marka lacag dheeraad maadaama shubay lacagta dheeraad ahayd wadna xisaab u hay warqada u haynin halkaan ku soo qorto
sida hore u sheegtay horena taas u sheegtay daatada maadaama sideeda lagu soo gudbiyo ani waxba kama kala reebto kambe hay'adan oo isoo gudbisay hay'adan oo isoo gudbisay waa hal transaction oo kamid ah halkaas transaction lacagtii laga rabay lacag ka badan maadaama la shubay waa ina cadeeyo oo iraado kambanigan lacagtii laga rabay lacag ka badan laga shubay meeshaan qoran haddana waxa ay raacsan minus inay tahay $360 minus ka badan oo shubay هدروري صدق بقول اللحدن كان لعقتي لبعتي دور مليون هلا نص ما يكون جرت مس بنانك كتاب كوما جرت بنانك كتاب كوما جرت marka lacag dheeraad way oo xisaab si lagu qaadaan la qonin kambanigaasaan lagu leeyahay dawladdu ku leeyahay si lagu qaado lama yaqaan macna lacagtan lama yaqaan waa wax aan baasaboorradoodana helay dukumentigiisana ahayna waa dukumentiga ahayna gudoomiye waa fahmo abukaad kala laakiin intaas ka dhalatay waxaan rabaa lacagta 20 milyan ah waa la lunsada aad tiri kolomyadan tay uga jirtaa lacagtana la isku dardaro waayo kolomyadan tay uga jirtaa lacagta buug waa haysataa xisaab qaado isku soo dardarso kolomkan farqiga ah sanadihiisa kala duwan oo dhan isku soo darso kolomka farqigan isku daraa asan 20 milyan ka imaane mase kolomka wasaaradda maaliyadda systemkeeda ku sheegtan isku daraa asay 20 milyan ka imaane mase kolomka adeegii la qabtan isku daraa asay 20 milyan ka imaane 20 milyan kolomkee laga keena 20 milyan laba adeego iskugu jira midna waa visa midna waa work permit hadaa rabta hal kolom oo sida u bilowd u dhamaado 20 milyan ka helaysa ma jiro sababtoo ah 20 milyan waxay iskugu jirtaa laba adeego kala duwan midna waa visa midna waa work permit labadii lifaaqba meeshaan kugu soo qoray labada kolom midna viisaha farqiga yahay midna work permit-ka farqiga yahay bal isku soo xisaab adiga labadaas ku siinaysa daatada khayr Allah ku sii waa maasanta labada farqi oo dhan aan isku daraa 20 milyan ka imaanay Soomaa ha hadda 360 ku waa ku jirtaa 20 milyan Soomaa saas waaye lacagta midda rabtana ma ka saara midda rabtana ma gelinay saddex fiiri aniga rabitaankayga meeshaan ma yaala rabitaankaygana kuma shaqeeyo xafiis qaran waxa meeshaan u taaganaa shakhsiyadeedu ma taagni daatadan hadaa xataa hadda kadib la soo raadiyo sidaan ayadoo ah la helayaa $360 dokumentigeedii iyo ayadii attachmentigooda dhammaystirna helaya ma fahantaa abukaad waa maasanta adeer Allah ku barakeeye waxaad ii sheegtay oo aan ka heestaa farqiga work permit-ka adeegiisa work permit-ka adeegiisa oo la barbar dhigay lacagta ku jirta wasaaradda maaliyadda farqiga u dhaxeeyo oo la isku wada dardaray oo lagu sii diray isbarbardhigga adeega visa accession-ka iyo wasaaradda maaliyadda farqiga u dhaxeeyo halkaas marka waxaan ka heestaa farqiyada inaan xisaabto farqiyada markaan xisaabo tago waxa ii soo galaya $360 $210 $180 $150 waa saf kamar waa badan yihiin 90 dhowr meela ku jirto wax ku dhow ma hubo tirada ma hubo raal ahaada laakiin number badana ku jiro lacagtaasi 20 milyan soo gali mayso haddana waxa tiri khasnaday ku jirtaa abukaate hadaa rabto ina emailiso oo shaqo aan soo qabtay u soo qabtay aan soo marto si fudud aan kaaga jawaabaa 20 milyan wuxuu iskugu jiraa laba adeeg horena waa kaaga jawaabay lifaaqiisina meeshaan ku soo dhigay adeerow isku soo darso 20 milyan fiisaha iyo work permit isku soo darso si fudud u helaysaa sidaas ma hadirore saas ma report kana wax laga weydiinaa adiga xaqna waxa lagu leeyahay in wax kasta oo report kan ku saabsan su'aal laga weydiiyo si fiican waxaad sheegtay lacagta maqanee 20 milyan iyo jajab ay tahay marka sameynaysa buugan adaa soo sameystay ma aha cid kula sameysay ma jirto macnaha inta hadda howlkan maxkamadda farida kolomkan hadda 360 iyo 210 waaragta Soomaa iyo 180 iyo 150 iyo hal
saddex boqol iyo lixdan ma haysaa kolomka hadda laga hadlayo 600 kolomka saddexaad qaybta hoos ka bilow beeshada iyo laba waa joogaa 630 oo ka bilaabana 630 ma haysaa ها 210 ka kor u akhri mid kale ma haysta gudoomiye waxaa hayaa 3300 mid ah waxaad noo soo gudbisanayaa yani wax gaar ma hayn beejka 32 ma joogtaa beeshada iyo laba jooga ha kolomka saddexaad meesha ugu hoose si hadaad akhris ka bilowdo maxay ku noqon adiga unsos oo 630 ah 630 kala iga koreey كماني كوري محالي بقى اوكي كجذب سدح لعقتها سدح ده بقول هالكا كوغو قرن سو فرقي لعقت مقن كولم كده كوغو مقرن ها اوكي warkaan aniga aan reportkan aan hayo waxa ku qoran 360 210 oo ka sareysa isla kolomka ku jirta 180 oo ka sii sareysa iyo 150 ka sareysa lacagaan hadda meesha ku jiro lacagta 20 milyan ma ku jiraan mise kuma jiraan gudoomiye lacagaha la isku soo dardaray meeshaas minus raacsan excel ka hadaa gelisan uu ka jaraa may waxa ka hadlaa minus ma fahmi karo waxa ka hadlaa accountant miya aniga waxaan rabaa wax la fahmi karo ana isla garano 360 kolomkaas ma lacagta 20 milyan iyo jajabka ayuu ku jiraa mase banaanku ka yahay lacagta 20 milyan uu ka jarmaa gudoomiye kamid ma aha inuu ka jarmaayna hadda excel ka la shido calaamad naaqisa saaran ama minus ama ka jar gudoomiye lacagtu waa balaas ka jar iyo ku dar waa lacagtan positive ka haday mid negative excel ka la hordhigo uu ka jarmaabo kuma jirtaa lacagtan hadda xagee ku jirtaa qasnada dawladda adeeg company loo qabtay oo dheeri ah qasnada dawladda lagu shubay gudoomiye systemka hanaanka maaliyadan waa laga helayaa anagana waa cadeynayna waa laga heli karaa ma ku jirtaa ma la isticmaalay taas waa issue ma la isticmaal kalma ma lagu shubo ma la geliyo waa lagu shubo waa la geliyo ha 20 milyan kuma jirto 20 milyan kuma jirto waxay raacsantaa maalinta raacsantaa abukaati okay waa mahadsan tahay khayr allah ku siiyo waxaan ka rabaa arinta iigu dambayso sorry passwordka iga xirmay هو سؤالين قول حجر أولي أوكي waxaad sheegtay in xogta work permit-ka
adeer